بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضا وضيال ميل كستو joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka Arabsiya News qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dibadbaxyo ka dhan ah farmaajo oo ka bilowda qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ee xarunta dalkaasi Soomaaliya ciidamada militariga ee wadankaasi Soomaaliya oo la wareegay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho dawladda Itoobiya oo safiir cusub soo magacowday wadanka Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaad warkayga ku daawan doontaan warbixin aanu ku eegayno doorashooyinka isku sidkani waa tijaabo kale oo ku wajahan dimuqraadiyadda Soomaaliland daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid qodobada ugu door karo la warkeen kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeeno fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garooba qadar adeega bulshada kusoo dhawaada shirkadda Border Mills waa warshada daqiiqda iyo calafka xoolaha oo dhammaantiin saamilayda halkan ka daawanaysa iyo qolalka social media-ga aad hirgeliseen imikana waxaan ku bishaareynayaa bacda Ramadaan inaynu daqiiqdii Border Mills aynu ku soo deyn doono suuqyada dalka iyo kuwa deriskaba iyadoo 25 kilogram iyo iyadoo 1 kilogram oo ka kooban 10 xabadood ama hal xidhmo oo 10 xaba taasoo ka qayb gali doonta tayada cuntada dalka taala saamileedana u soo celin doonta faa'iido aad iyo aad u wanaagsan saamiga shirkadana 9 cisho waynu kicin doonaa maadaama shirkadda wax walba ay u dhamaadeen oo run ahaantii aanay baahi sidaasi haynin imika waxaynu wadnay hawshan 2 sano iyo 10 bilood COVID-19 baa dhacay adduunka kala xidhmay laakiin maxaa dhacay hawsheeni may habsaamin guusheeni may habsaamin waanay joogtaa dadweynaha danaynaya saami nala soo xiriir adoo adeegsanaya macluumaadka shaashada kaaga muuqda banaanbax xooggan oo lagaga soo horjeeda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta ka socday iskoyska fagax ee magaalada Muqdisho banaanbaxan ayaa waxaa dhigay dadweyne fara badan oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo sheegay in aad uga xun yihiin muddo kordhinta ay golaha shacabka u sameeyeen madaxweyne farmaajo dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinaya ereyo ay ka mid yihiin dooni mayna farmaajo iyo hadhaca farmaajo waxayna banaanbaxayaashaasi laamida ku dhex gubeen taayiro waaweyn meesha ugu horeysa dadka ugu horeeya joogaan dawriya halo taliya واحد ايوه سيبوا له استغفر الله banaanbaxyadan ayaa ku soo beegmaya kadib markii iskoyska fagax ay maanta soo gaadheen ciidamo fara badan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta madaxweyne farmaajo in dawladnimada iyo umadnimada iyo qarannimada in la muujiyo waxaana garab taagan madaxweynaha Puntland oo ah maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya annaga qabiil farmaajo kuma haysano waxaan ku haysanaa jidkii saxda ah ee uu ka leexday jarnaal Saadaq Joon waxaan ku hambalyeynaa wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda u soo hooyay oo cawada sida sharafta leh ku taaraadayno هذا كمان dadka meeshaan taagani waa in ka badan 2 kun oo qof ayaa awal halkan waxaan ku taaganahay 2 kun oo qof ka badan ayaan ku taaganahay waxa jooga culamadii waxa jooga odayaashii waxa jooga dhalinyaradii waa tahay sheer gareeya
xaaladda waqooyiga magaalada muqdisho ayaa maanta ah mid aad u kacsan waxaana walaac xoogan ka muujinaya arrimahan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka cabsi qaba isku dhacyo dagaal oo ka qarxa magaaladaasi. ciidamadan oo xalay soo gaadhay waqooyiga muqdisho ayaa lagu warramayaa in ay la wareegeen iskoysyo muhiim u ah waxaana hogaaminaya sida la sheegay saraakiil ka biyadiidan muddo kororsiga dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdilaahi farmaajo. ciidamadan ayaa lagu warramayaa in ay la wareegeen iskoyska Fagax, qaybo ka mid ah degmada Kaaraan iyo welibana Hilwaa sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaalihii. meelaha ay ciidamadani ku sugan yihiin ayaa lagu arkayaa gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ah oo xalay ka soo baxay furimaha iyo saldhigyada difaaca ee ciidamada militariga Soomaaliya ay ku sugan yihiin. ciidamadan ayaa la sheegay in uu hogaaminayo sarkaal lagu magacaabo Cornel Sani Cabdulle. ma jirto faahfaahin intaa dhaafsiisani oo laga bixiyay dhaqdhaqaaqan ay ka wadaan magaalada muqdisho. go'aankii uu dhowaan baarlamaanka Soomaaliya muddada ugu kordhiyay dowladda hadda jirta ayaa waxaa ka dhashay hadha siyaasadeed iyadoo ay si weyn uga biyadiideen siyaasiyiinta mucaaridka ah oo ka digay in cawaaqib aan wanaagsaneyn ay arrintaasi keeni karto. dowladda Itoobiya ayaa safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya kaasi oo gaadhay magaalada muqdisho sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. safiirka cusub oo lagu magacaabo Cabdulaahi Xasan ayaa waxaa maanta xarunta wasaaradda ku qaabilay isla markaana waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. safiirka cusub ayaa bedelaya Jamaaludiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya. sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda, wasiirka ayaa safiirka ugu baaqay inay mideeyaan dadaalada labada dal si ay uga faa'iideystaan fursadaha iskaashi. waxa uu sidoo kale sheegay inuu qiimeynayo wada tashiyada ay wadaageen labada dal ee ku saabsan arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka ee ay wada danaynayaan. qoraalka wasaaradda ayaa intaasi ku daray in safiir Cabdulfataax uu xaqiijiyey taageerada dalkiisu u haya shacabka iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya uuna ku faraxsan yahay inuu ka shaqeeyo Soomaaliya si uu u horumariyo xiriirka labada dal. daawadayaal halkaad nagala socotaan waa News. jamhuuriyadda Somaliland waxa ay u jihaysatay dhinaca doorashooyinka waxaana 31 bishan May ee sanadkan shacbigu u dareerayaan doorashooyinkii u horeeyay ee isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasoo sumcad hor leh u soo jiidaya xidignimada dimuqraadiyadda Somaliland. waxaa xukuumad, komishan iyo xisbiyada qarankuba ay gacmaha isku qabsadeen sidii ay doorashooyin dimuqraadi ah uga qabsoomi lahaayeen dalka kuwaasoo mar kale caalamka u iftiiminayo hanaqaadka dimuqraadiyadeed ee jamhuuriyadda Somaliland soo caanamaashay 19 sannadood ee la soo dhaafay ee uu ka tis qaaday nidaamka xisbiyada badani oo ay dalkani ka dhaceen doorasho oo hore oo dunidu ku tilmaantay qaar buuxiye heerarkii iyo shuruucdii looga baahnaa doorashooyinka xorta ah. waxaa dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinkani isku sidkani intiisa badan dhabarka u ridatay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland oo u babacdhigtay inay dadaal u gasho sidii looga maarmi lahaa yaboohidda lacageed ee qaadhaan-bixiyayaasha caalamiga ahi ku darsan jireen geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland. komishanka doorashooyinka qaranka ayaa juhdi weyn ugu jira sidii ay wakhtigii loo cayimay ugu qabsoomi lahaayeen doorashooyinku waxaanay soo saareen liiska codbixiyayaasha ka qaybgalaya doorashada wakiilada iyo golayaasha deegaanka kuwaasoo tiradoodu dhan tahay 1,297,838 qof waxaanay asteeyeen goobaha ay doorashooyinku qabsoomayaan oo ah 1,642 goobood oo ku kala yaala 23 degmo doorasho. rayul caamka bulshada ayaa aaminsan in doorashooyinkan si nabadgelyo ah u qabsooma ay guul u tahay hanaanka dimuqraadiyadeed ee jamhuuriyadda Somaliland waxaana si gaar ah libteeda ugu suntanaan doona madaxweyne Muuse Biixi oo mudnaan weyn siiya sidii mar loo wada qaban lahaa doorashooyinkii dhaqaalaha badani dalka kaga bixi jiray oo hirgalkeedu noqonayo tijaabo lagu guulaystay oo mustaqbalka lagu shaqayn doono. Master Michael Robin oo ah khabiir iyo xeeldheere military oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa qormooyin uu ku daabacay warbaahinta caalamiga ah waxa uu jamhuuriyadda Somaliland ku sifeeyey hoyga nabadda iyo dimuqraadiyadda geeska Afrika waxaanu ka marakacay in geedi socodka dowladnimo iyo dimuqraadiyadeed ee Somaliland uu yahay mid caga adag ku taagan oo la isku halayn karo.
safiirkii hore ee dowladda Turkiga u fadhiyay dalkaasi Soomaaliya ambassador Kamaluddin Kani xilliganna ah xogayaha guud ee xisbiga mustaqbal oo kamid ah xisbiyada waaweyn ee ka jira wadankaasi Turkiga ayaa kamid ahaa diblomaasiyiinta ka soo falceliyay doorashooyinka isku sidkan ee la filayo inay dalka ka dhacaan 31 bisha May. Danjire Kamaluddin ayaa bartiisa Twitter-ka kaga hadlay doorashooyinka waxaanu sheegay in Somaliland ay tusaale ifaya u tahay dimuqraadiyadda wadamada Geeska Afrika. Somaliland waxay tusaale ifaya u tahay dimuqraadiyadda Geeska Afrika. Ana rajaynayaa inay ku dhamaystiri doonaan shaqadan wanaagsan cadaalad doorasho xor ah. Geesta kale suxufiga caalamiga ah ee Raage Omar ayaa bartiisa Twitter-ka kaga hadlay doorashooyinka Somaliland waxaanu sheegay in xukuumadda Somaliland ay heshiis la gashay xisbiyada mucaaradka iyadoo aan wax faragelin ah aanay ku lahayn beesha caalamku. waxaa kaloo Raago Omar uu ku bogaadiyay Somaliland in xukuumaddu ay maalgelisay dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka. Sidaas daraadeed doorashooyinka Somaliland ayaa fariin cad u ah farqiga u dhaxeeya Somaliland oo dimuqraadiyadeedu gaamurtay iyo Soomaaliya oo ku guuldareysatay isku daygeedii la xidhiidhay inay gasho doorasho taas oo sida xumbada u soo gudhay isla markaana madaxweyne Farmaajo baarlamaanka ka ansaxsaday muddo kordhin 2 sannadood ah oo ay ka hor yimaadeen musharaxiintii la loolamaysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalkaasi colaaduhu ragaadiyeen. Daawadayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareed intaanu warkan warkaxiga kulmi doono waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.